marka madax tahay meel aad xukuntid adug oo dawlad aad ka tahay awood aad u adeegsatidna aan leedahay hayadana mas'uuliyadeeda waa ku saaranta waa gacanta munkarka gurigaaga dhex yaala saldanadiisa iyo mas'uuliyadiisa aad haysid gacan ba ku suuli kartaa hees ba ka daara gurigaaga dami wax daran ba la fiirsanaya baqti salaad la'aan ba ka jirta karbaash حجاب الآن بكتير كرباش وحكيني أودا قريجا مامل سواد أدودا هذا ديوث أهين ديوث وحوي متك أصله سيس إسكجع عبادة يسته لكن دتك سحمان عن كقبل إنه حركة الله يقول قريجا جيبها سوق له يا ويل قراباتين أو أجنبي قبل هذه بتشردين كلا فرديا قبل هذه بيلا في سنة يا واحد راني يقشي gabadhaadii bay loo qoslahayaan hor fadhiyaan fuxshiga iyo xumaanta gurigaaga lagu sameeynayo adiguna masaajidka ka iimaanaysa albaabka markay ka furaana waa dhex maraysa wiilkii waa ku salaami gabadhaadii ajnabi ka abu la fadhi kan waxa dhashay habar yartay kan eedaday baa dhashay kan aftigay kan ilma adeer baa nahay dhaqan xun oo qurun ugu diinta islaamku aysan ogolayn dayuutnimo ayuu dhaxal siinaya qofka noocaas ahna mas'uuliyadda ilaahay saaray waa dayacay hawlgalkaas oo aan ku nimid degmada Cabdicasiis goobo ka mid ah oo muddo dheer lala hadlaayay loo digay qoraal iyo af intaba lagula hadlay degmadu ay intaasoo ribood ka keentay bulshada Soomaaliyeed ay intaasoo maaragta cabasho ka keeneen lala hadlo la yiri dalka dhamaantiis muqaadaraadka iyo daraagiska kala duwan iyo goobaha lagu iibiyo iyo kuwa maaragtay dadka sameeya iyo loo keenay intaba ay mamnuuc yihiin ayaa maaragtay muddo hawshaas ay socotay waxaan ogaanay dadkaas inaysan diyaar u ahayn inay amarka dawladda gaar ahaan amarka duqa magaalada ee gobolka Banaadir iyo hay'adaha amniga gobolka inaysan diyaar u ahayn inay u hoggaansamaan sida darteed hawlgal caawa uu duqa hoggaaminayaan meeshan ku nimid wixii maaragtay aan ku soo aragnana waxay ahaayeen wax la yaab leh oo cajiiba laga bilaabo caawa goobahaasi ayaga ah iyo kuwa la midka ah oo aanan weli gaarin waa xiran yihiin mana la furi karo sidoo kale magaalada Muqdisho goobaha kalaabyada ku yaalaan ee ummadda dhalinyarada ilmaha lagu fasahaadinayo kulli waa xiran yihiin cidii furtaan ayda mas'uul ka ah hadii Ilaahay yiraahdo taasna waxaan leenahay waa awaamir go'doon bixinayno gaar ahaan xeebtaan liido degmada Cabdicasiis fasaadka faraha badan oo ka jiro iyo waxaan caawa ku arkaynay cid bini aadam uma adkaysan karto damiirkana ma siinayo qaarkood waxay isku dayeen inay ay waa cabsan yihiin inay nala dagaalamaan isku dayeen waxaan ilaalinay xabad waxaan ilaalinay qoray waxaan ilaalinay bustoolad in dadkaasi ay ku dhacdo ama lagu rido intaas waa ka taxadirnay waxaan adeegsanay gacmahaynaan adeegsanaynay dhalinyaradu waan qaar badanna waan la talinay qaar badanna xabsiga ayaan geynay waaga markuu bariyo ayaana waalidiintooda lagu wareeji doonaa sidaas ayaan ku amarnay waxaan aragnay qaarkood bustoolado wataan ee dhalinyarada kula dhex jiraan qaar waxaan aragnay qoryo wataan ee irdaha u taagtaagan intiba waxa waaye wixii qor ahayna cid mudnaadaan ku wareejinay wixii bustoolad ahaydna cid mudnaadaan ku wareejinay qaar qolo kasta ma cid ay sheegatay waxay sheegatana waxa waaye magacyadoodan qornay waan diiwaan gelinay arintaasna caawa ilaahay waa noo fududeeyay laga bilaabo saacaana kalaabyadaasi waa sida aan u xirnay mana furi karaan cidii furtaana waa kula xisaabtamaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh hay'adaha amnigana awaamirtaas mar horaan siinay haddana waa qabaan haddii Ilaahay yiraahdo calaa kulli xaal meesha horaan u sheegnay inaan la dagaalamayno daraagiska ciyaal weerada sidii khawaarijtan u dagaalamayna horaan u sheegnay tiyaana ka dhaweeyo haynaa caawa oon u taaganna